tahay ayad tahay haddanad ogayn meeshad ka timiday meeshad ku socotid ma ogan kaartid waa maxay magaca Soomaali waa kelmad guumaystuhu ku saray mar hore 1960kii xorriyad lama qadan ee waxaa la xeergeliyey guumaysi toosa lagu jiro marka aad u fiirsatid kaartooyinka adduunka kelmadda Soomaali kuma jirto markuu guumaysigu imaday ayuu magacan ku saray dadku waxay dhahan caanaha Soomaal ayuu ka imiday magacu waa runtaasi kelmadan waxay soo saareen 1858 kaartooyinkii ka horeeyey kuma jiro magaca Soomaali wayo waa magac guumaysigu saaray markay inoo yimaadeen ka hor meeshan dadkii degana waa reer binu Israa'iil waa dadkii aan ka taafirmanay kaartadan waxay ku tuusaysaa inay kuushitigu deganayd meeshan 5,000 oo sano horteed geeka Afrika gees ila gees dadkeena ayaa degana waxaana dhalay oon ka taafirmanay nebi Nuux iyo inamadiisii oo miid ah nebi Israa'iil caddaynta uu horaysa waa dhaqanka dharka caad guntimada macawista xeerada iyo ciyaaraha oon weli haysano sida labadan hablood waxay ciyaarayaan waa hooydado waa ciyaarihii hore ciyaarahan oo ila hadda la haysto caddaynta labad wajeexan bada ka imaanaya Egibt ku dhammaanaysa geeska wajeexii nebi Muuse soo mariyey dadkii naga horeeyey caddaynta saddexaad las qoray sawirka ku yala u fiirso waa sidii Ilaahay Qur'aanka nagu sheegay qofkan wuxuu cabuuday Yasaac waxaad ku garata gacmaha kor u tagay waa sidii dadkii cawanka ay samayn jireen sawirka labaadna saaru uu ka saaraya qofkuna u hoos jooga gamcahana kor buu u haya waa cabuudis ayay ku tuusaysaa caddaynta afaraad waa xirsigu waa saan madow oo wadadku dadka u soo samayn jiray siduu lacag uga cuno iyo qaar sixir ku ridi jiray dadkan hadda magaca reer Israa'iil sheegta wax beena oo kobi ah ayay samaysteen gacanta iyo madaxa ayay ku xidhan laakiin saxdu waa xirsiga caddaynta shaanad waa boqoradii Hatshepsut markay doonta soo diratay waxay timid geeska isku af ayay ku wada hadli jireen waxaas oo dhan waa caydaymo la dafiiri karin waa 7 qaybood guumaystuhu nagu kala saaray waa cabsi bay ayad oo taariikhda kaga beddeleen Soomaalina ku saray laakiin runtu way soo baxda wax la qariyaba 1960kii xorriyad may ahayn waxaan qadanay ee waxay ahayd guumaysiga markii la sharciyeystay oo magac beena lagu saray waa sistemkii Farcuun ayaa dib lagudu soo celiyey madaxweynuhu waa Farcuun wasiirku waa Hamaan barlamaankuna waa kuwii la shaqaysanayay ee tuugta shicibkuna waa adoon la guumaysto waa inaa sistemka Farcuunka la duumiyo nebiyadii oo dhan anaga ayaa ahayeen waxaa ku caydayna dulmigii ay samay jireen dadkii naga hore ee Qur'aanka ku jira Soomaalidu maanta way ku jirta kii wax kufsaday iyo kii wax dilay gacan ku dhigle iyo dulmiye ayaa bulshadii ku jira oo qabil lagu difaacaya siday nabaad ku soo noqon Ilaahay uu ku arkaya diintu afka maha waa ina lagu dhaqmaa Qur'aankana waa ina la noqda diintii waa laga qariyey wayo maanta Qur'aanka macnihiisa ma taqaanid dhaqankii waa laga khaday maanta dhaqan Iran iyo dhag case ayad haysata kamiis foolxun oo cabuur u eeg iyo maro weyn taariikhdadiina waa laga qatay wana lagu nacsiyey wana laysku ka diray dumarkii been ayaa loo sheegay Ilaahay timaha ma odhan waa shalmad soo huwada nasaha qariya ayaa Qur'aanka ku qoran sidii ay dumarkii hore shalmada u haysteen balse dagaalka kadib ayay xijaabkan beenta soo saareen ee dumarka lagu dulmiyey goormad hurdada ka kici goormad runta arki dhag castu waa cadowgeena waxaa u shaqeeya waa odayashan cawanka xukunka haya iyo sheekh beenale saddexda cadow waa ina layska qabta intay goor tahay daadku intuna ku soo gaalin ayaa layska moosa halganka ku soo biir fikirkagana hoos ka dhiibo sidoo kalena soo raac si aad siiro kale u hesho